السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داوديال halkani warbaahinta All Banaadir online ku soo dhawaada warka qodobada aan ugu hayno waxa kamid noqonaya ganacsi faa'iido badan oo ka socda xarunta xalan ee magaalada Muqdisho ganacsigaasi ayaa wada waan idin soo gudbinaya wiilkii dhawaan ku libistay calanka jamhuuriyadda ee lagu xiray magaalada Hargeysa oo dib loo sii daayay maanta haddaba siideyntaasi ayaa gacan geystay warkan ayaad ku daawan doontaan UK oo soo faragelisay khilaaf u dhaxeeya dawladda federaalka Soomaaliya iyo Kenya haddaba UK maxay ka tiri khilaafkaasi warkan ayaad ku daawan doontaan xiisada Puntland iyo Somaliland oo xiisad gooni ah yeelatay iyo isku dhax xoogan oo laga cabsi qabo inuu dhaco dagaal xoogan oo Muqdisho ku dhex maray ciidamada ka wadaysan dawladda federaalka Soomaaliya qasaare ayaa jira waan idin soo gudbinayaa dibaddana waxaan idinkaga hayaa Sacuudiga oo xulafaysi raadsanaya dalka Iran qodobadaasi aad daawan doontaan taariikhdu waxay ku beegan tahay 30ka bisha shanaad May 2019 oo diyaar garooba daawadayaal qodobadii aad maqasheen oo intii hore ka door xuran ayna ku bilowna wiilkii dhawaan ku libistay calanka jamhuuriyadda Soomaaliya ayaa waxaa laga sii daayay xabsi ku yaalay magaalada Hargeysa oo in dhawaanahan buu ku xirnaa wararkayna ku helayno magaalada Hargeysa ayaa sheegaya in xukuumadda Muuse Biixi maanta xabsiga ka sii deysay Cabdiraxmaan Aar ayaa ciidamada Somaliland 14kii bishaan waxay ka soo qabteen bartamaha magaalada Hargeysa isagoo labisan dharka laga sameeyay calanka jamhuuriyadda Soomaaliya maxkamadda gobolka Maroodijeex ayaa Cabdiraxmaan Aar la horgeeyay Khamiistii hore taasi oo dhageystay eedihii loo haystay iyadoona dib u jartay 7 cisho oo rumaan ahi oo maanta ku ekeeday Cabdiraxmaan Aar ayaa waxaa la filayay in dib maxkamadda gobolka Maroodijeex lagu soo celiyo markaasi oo toddobaadkani u dhamaaday waxaana balse maanta ayaa dib loogu soo celiyay xorriyadiisii taasi oo u muuqatay in xukuumadda kulmiye garwaastay xariga sharci darrada ah ee lagu xiray wiilkaasi libistay calanka jamhuuriyadda wiilkan loo haysto inuu libistay dhar laga sameeyay calanka jamhuuriyadda Soomaaliya xariga wiilkan dhalinyarada ayaa waxaa laga cambaariyay meelo badan oo ka tirsan Soomaaliya iyo dalka dibadiisa waxaana lagu eedeynayay xukuumadda Muuse Biixi inay cadaadis xoogan saarayso dhalinyarada ku nool magaalada Hargeysa hase yeeshee maanta iyo dib xorriyadiisii loogu soo celiyay Cabdiraxmaan Aar oo ka tirsan dhalinyarada ugu fircoon deegaanada Somaliland xiisada Puntland iyo Somaliland oo xiisad gooni ah yeelatay iyo dagaal xoogan oo laga cabsi qabo in maamuladaasi dhaxmaro wararkayna ku helayno deegaanka ka tirsan gobolka Sanaag ayaa sheegaya inay sii xoogeysanayso xiisada u dhaxaysa Somaliland iyo Puntland iyadoo ciidamo fara badan lagu arkayo deegaanka ka tirsan gobolkaasi xiisadan ayaa korortay kadib markii saraakiil badan oo ka soo jeeda Somaliland ay ku biireen Puntland waxaana soo baxay warar sheegaya in mas'uuliyiin kale ay iscasilaad ku dhawaaqeen badhasaabka Somaliland ee bariga gobolka Sanaag Cabdi Xuseen Somali ayaa ku dhawaaqay inuu iska casilay xilkii uu ka hayay isagoona sheegay inuu haatan kulamo la qaadanayo odayaasha deegaanka Master Somali ayaa waxa uu sheegay inuu ku faraxsan yahay go'aankiisa waxa uu cadeeyay in uu diyaar u yahay sidii uu qayb qaadan lahaa waxyaabaha horumarka ah ee ka socda deegaankiisa sida hadalkiisa uu dhigay dhinaca kale markaynu ka helno gobolka Sanaag ayaa sheegaya in ciidamo badan ay gaareen deegaan ka tirsan gobolkaasi kuwaas oo ka tirsan labada maamul dhawaan dawlad goboleedka Puntland ayaa shaacisay inay isku soo dhiibeen ciidamadii ugu badnaa oo ka tirsan Somaliland waxayna sidoo kale ay sheegeen inay saraakiisha hogaaminayay ciidamadaasi ay isku soo dhiibeen dawlad goboleedka Puntland labada maamul ayaa isku haya maamulada deegaan hoos yimaada degmada Badhan ee gobolka Sanaag waxaana maamuladan dhowr mar ay ku dagaalameen deegaanadaasi waxaana dagaalkaasi ka dhashay qasaare isugu jira dhimasho dhaawac walow ilaa iyo haatan xiisadu ay tahay mid cirka isku sii shiraraysa dagaal xoogan oo dhaxeeya ciidamada ka wadsan dawladda federaalka Soomaaliya ayaa waxa uu ka dhacay magaalada Muqdisho sida ay sheegayaan wararkayna ku helayno xaafadda Xoosh ee degmada Dharkeenley ee gobolka Banaadir ayaa sheegaya halkaas uu ka dhacay dagaal u dhaxeeya ciidamada ka wadsan militariga Soomaaliya dagaalkani oo aanan la ogeyn rasmi ahaan waxa sababay ayaa waxa la sheegay in ciidamada degan xaafadda Xoosh oo militari ah inay weerar ku qaadeen ciidamo kale oo ka tirsan kuwa militariga Soomaaliya sidaas dagaalkaasi uu dhashay inta la xaqiijiyay dagaalkaasi ayaa waxa uu geeriyooday hal askari halka tiro kalena ay ku dhaawacmeen waxaana wararka soo baxay ay sheegayaan in ciidamo kale oo watay sargaal lagu magacaabo Liibaan oo ka tirsan guutada saddexaad ee militariga Soomaaliya iyo mid kale oo magaciisa lagu soo koobay CD ay halkaas gaareen wararka ayaa intaas waxay ku darayaan in meesha lagu dagaalamay uu yaalo gaari Cabdi Bilaahi
oo ay wateen ciidamadii weerarka soo qaaday. Mas'uuliyiin ka tirsan maamulka degmada Dharkeley iyo saraakiil ciidanka booliska oo gaaray goobta ayaa lagu warramayaa in askartaasi ay qaarkood gacanta ku dhigeen, kuwa kalena haatan lagu raad joogo, waxaana loo gudbiyay taliska militariga Soomaaliya si arrintaasi wax loo qabto. Ilaa iyo hadda lama oga waxa sababay dagaalkaasi, waxaana warar hoose aynu helinay sheegayaan in dagaalkaasi uu la xiriiro isqabqabsi dhul oo maalmihii la soo dhaafaba deegaanadaasi ama deegaanka Xoosh ka taagnaa. maahan markii ugu horeysay ee ka tirsan kuwa dowladda federaalka Soomaaliya ee isku rasaasayeen gudaha magaalada Muqdisho, waxaana ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho dhaawac kuwaas oo ka soo gaara dadka shacabka ee deegaanka lagu dagaalamo iyo ciidamada waa dagaalama. waxaana dhawaan guddi loo saaray inay wax ka qabtaan dagaaladaasi ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya ku dhex mara magaalada Muqdisho, walow ilaa iyo haatan aysan jirin guddigaasi howlo ay qabteen oo aad u muuqda. guud ahaan markii ka daawanayseen warbaahinta Banaadir online saaxiibayaal waa naga intaas subscribe haddii aad ku cusub tahay warbaahinta Banaadir si ay ku soo gaaraan akhbaaraadka ka dhaca wadamada caalamka.